السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميلو البوات شوكتان وعبد محمود قلاع يا برنامج كيدين كي ما يشري معهد كنبضة يا برشلة ولا ليال عيد وناكسن ما أنتوا مالين فرحان له لكن مركل ودن كان حالة دي سوسيدة التهي يدروفها إنه كتشرو runtii farxaddaas waa yartahay meel walba colaad iyo baqdin iyo isdiid iyo iska horimaad iyo muran baa ka taagan ma jeclayn maanta oo kale in arrimahaas ka hadlo laakiin waa khasab in wixii jira oo duruufaha aynu ka sheekaysano oo wixii ay nala tahay oo talaa halkan machadka nabad iyo bulshada aanu ka soo jeedino aanu codka iyaga ku daro codka kumanaan Soomaaliya oo leh war dadka ha loo dhimriyo war arrinta ha la dejiyo war arrimaha wax laga qabto waa laga maarmaan arrintaas waayo waxyaabaha taagan waa waxyaabo u baahan runtii wadajir in loo wajaho dadka Soomaaliyeed u wajahaan oo ay ka hortagaan dhibaato kale oo halkaa ka dhici karta waxaan idinka codsanaynaa marka hore inaad barnaamijka like iyo subscription ku samaysaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dad badan baa maalmahan barnaamijka taageeray waa arrin wanaagsan runtii waana sida aanu doonayno marka walaalayaal maaragtay wada taageeradiina wada insha Allah arrinta maanta aynu ka hadlaynaa waxa weeye qalalaasaha iyo qaska iyo baqdinta ka soo cusboonaatay gobolada la yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya ama South West gobolkaas loo yaqaano state oo ma garanaysaa Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose dhulkaas oo dhan maaragtay gobolkaas hoos yimaada arrintaas waxa way sida la wada socotaan muran soo kala dhexgalay hoggaanka gobolkaas iyo madaxweyne Xasan Sheekh waxaan dhageystay dad badan oo ka hadlaya oo ka mid yahay ninka la yiraahdo Lafta Gareen oo ka mid yahay ninka ma garanaysaa Dr. Fiqi la yiraahdo oo maaragtay afhayeenka baarlamaanka gobolkaas Koonfur Galbeed dad badan oo odayaal Soomaaliya cid walba dad fara arrinta aad baan u eegay bal waxa inaan fahmaan isku day waxaana ii soo baxday marka hore labada nin waxa la labadii xaraan ku heshiisa xaqay ku dirirtaa horta labada nin sida uu sheegay Lafta Gareen wuxuu yiri Xasan waxyaabo badan oo aan raali ka ahayn laakiin damacaaga baan kugu raacsanay labada nin waxay ahayd in la istaageero ninba ninka kale awoodda u sii joogo uu gacan ku siiyo laakiin Lafta Gareen hadda waxa uu cadaatay Xasan inaanu meesha la doonin oo uu rabo inuu dad kala keeno isna wuxuu yiri haddaad sidaa bilowday aniguna bas weeya adigoo dhan baa xiriirka ka jaranaya oo halka ka tagaya waxa way arrimahaas runtii waa arrimo dhibaato leh waana arrimo xanuun badan waana waxyaabaha halka inagu haya marka madaxdeenu ay maslaxada guud iyo danta guud ay ka fikiri weydo oo ay ka fikiraan danahooda shakhsiga iyaga waxyaabahaas oo kale ayayna dhaxalsiinayaan arrintaas waxay hadda maaragtay laga sheekeynayaa oo laga baqayaa in dagaal dhaco oo qolo walba qolada kale ay ku duusho waxaan maqlayay oo arkaya maanta ninka la yiraahdo Faqi oo ninka afhayeenka ka gobolka oo la dagaalkan waa daba dheeranaya dadka diyaar garooba arrintaas waa arrin dhiila leh runtii arrin laga raali noqon kara maaha waxaan kaloo maqlayay oo la leeyahay dawladda ayaa ciidamo geysay Baraaway geysay meelo kale geysay oo ka tirsan Shabeellada Hoose dhulkaas ay rabtaa inay qabsato dawlad kale oo Tabaydhaba la feer ordaysa inay halka ka furto oo maaragtay aadan madoobe iyo wasiir TikTok iyo dad caynkaas ayay wadataa waxyaabaha caynkaas laga sheekeynaya waxyaabahaas oo dhan ma aha waxyaabo maslaxadda iyo danta Soomaaliyeed ku jiraan laakiin waxa weeye waa arrin u adeegaysa dan yar oo dhowr qof leeyihiin oo iyagu doonaya awoodda inay haystaan oo ku manaafacaadaan oo maaragtay ku hantiyeystaan oo aan dan kala hayn oo u naxayn dadka Soomaaliyeed way arrintaas waana tala rabo in laga dhiidhiyo oo la diido oo la yiraahdo ma ogolin waa in xal siyaasadeed iyo nidaam la helo waa in xal siyaasadeed la helo ninka jooga maaragtay Baydhabo gudoomiyaha ka ama halka gobolka xukuma isaga laftiisu waa inuu ogolaado in dadku si xor ah ay qofkay rabaan u doortaan ma aha isagu inuu ugu fiican yahay inuu maaragtay ugu jecel yahay inuu ugu naxariis ma aha dadku adeer qofkay doonaan ha doorteen waa in lagu la tartamo waa inaad ogolaatid in awoodda si siman looga qayb qaato Xasan Sheekhna waa inuu faraha kala baxo gobolada dhibaateed markii hore markay ka ogolaadeen inuu soo farageliyo yiraahdo sanad maar idin ku daray maxaad ugu daraysaa sanad
waxay leeyihiin dastuur bay leeyihiin xeerka ma garanaysaa guud ee federaalka sheegaya gobolladu say isu maamulayaan maxaa ku dhex geliyey maad ku taageertid inay iyagu iswadaan oo magaciisi ma jirto xasan waxa dan kama leh inuu state soomaaliyeed ee qaran soomaaliyeed dhiso xasan dan kama leh keliya wuxuu ka fikirayaa inuu maaragtay awoodda saa ku haysto arrintaas runtii waa arrinta dhiilada leh laakiin arrinta farxadda leh ayaan idiin sheegayaa arrinta farxadda leh waxa weeye in dadka soomaaliyeed ma aha siyaasiyiin keliya laakiin cid walba inay kasoo horjeesatay damaca xasan sheekh ee guracan oo uu doonayo inuu awoodda kusii haysto oo ummadda soomaaliyeed ku kala qaybiyo oo ku dhibaateeyo arrintaasi arrin hagaagsan ma aha waana arrin la raba in laga hortago dadkaasina aad iyo aad bay u mahadsan yihiin odayaal baan arkayay muqdisho ka hadlaya oo le inay yihiin dadka halkaa muqdisho maaragtay budhigga u ah ama ma garanaysaa halkaa deegaanka inay yihiin oo le xasanow waanu kaa diidnay arrintaa jooji waana arrin wanaagsan waana arrin loo baahan yahay gobol walbo soomaaliyeed inay ka dhacdo gobol walbo soomaaliyeed dadka xukuma oo gobollada xukuma waa in la diido markay awoodda ku takrifalaan axmed madoobe fiiro wuxuu sameeyey dastuurku wuxuu ogolaa 2 xilli buu ku darsaday wuu furtay inta 5 jeer lasoo dooran karaa deni waad arkayseen wuxuu sameynaya waagii doorashada siduu maaragtay yani wixii dadku ka yaqiiqsadeen oo la naxay oo ma garanaysaa malxiiska loo bixiyey iyo caynka maxaa loo bixiyey magac bay u yaqaaneen malxiis ma ahayn magac kale ay ahayd oo ma garanaysaa caynkaas yani markay siyaasadda awoodda markay sidaa ugu takrifalaan dadka awoodda haysta waa inaynu diidno waayo way dhinac mareen sharciga way dhinac mareen arrintaa marka odayaasha muqdisho ka hadlay aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin oo aad iyo aad ayay doorkooda u qaateen laakiin waa in lagu taageero oo si buuxda looga hor yimaado xasan khaladaadka iyo dhibaatada uu rabo inuu ina geliyo waayo dalkeennu dagaal dambe iyo rafaad dambe iyo magaciisii dambe kama bixi karo laakiin arrinta runtii ugu farxadda badan waxa weeye dhallinyarada muqdisho oo hadashay iyaduna isu soo baxay oo halkaa ka jeediya hadal oo yidhi xasan sheekhow kaa yeeli mayna waxaad wado mustaqbal baanu rabnaa nolol baanu rabnaa inaanu noolaanaan rabnaa inaan dhallinyarada adduunka la mid noqonaan rabnaa inaan hawl qabsanaan rabnaa inaan ganacsi qabsanaan rabnaa inaan shaqo helaan rabna nolol baan rabnaa nagadaa waddanka yaga 4 sanaad xukumaysay sidii xeerku yahay fur doorashada ka qaybga ama iska tag adigaa yaqaana laakiin madaxweynew kaa yeeli mayno arrintaas aad iyo aad ayay maaragtay runtii ii farxad gelisay marba haddii dhallinyaradu ay garteen inay arrimaha taabanaya noloshooda maanta iyo mustaqbalkooda iyo caruurtoodaba inay ka hadlaan oo dhallinyarada soomaaliyeed ay diidaan darxumo inay ku jiraan darxumadii ay ku dhasheen inay ku gaboobaan oo caruurtoodu gasho inay diidaan runtii arrintaas waa arrin farxad leh waana arrin la rabo in la ballaariyo oo waddankao dhan ay ka dhacdo dadka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed isku xirmaan ururada shaqaaluhu isku xirmaan bulshada soomaaliyeed isku xiranto hal dan baynu leenahay walaalayaal oo ah inaynu soomaali midaysan nahay oo ma garanaysaa danaheena ka shaqayna federaalkeenna aynu ahaano laakiin waa inaynu haddana hal wadan nahay oo waddanahooda ka shaqeeya oo adduunka la tartamo oo aan cidna hoosin oo eegin oo cidna ma garanaysaa aanay ma garanaysaa khatar inagu ahayn sida etoobiya iyo kenya iyo khatar bay inagu yihiin waayo haddaynu ismaamuli weyno waddanku waa lana qabsanaya maxaynu samayn karaynaa waxba ma samayn karayno marka arrintaasi runtii dhallinyaradaas ay sameeyeen dad badan oo ma garanaysaa odayaala ay sameeyeen ka hadleen xasan la diiday waxa weye arrin farxad la weeye waana arrin keenaysa sidaan rajaynayo inuu dib isu eego isaga uu yidhaahdo war waxaani sax miya xaggee waxaan uga baxaa uu caqligu taliyo oo uu garto in waxa uu doonayo aanu ma garanaysaa runtii uusan heli karin waayo ummaddii soomaaliyeed baa diidan waxaana jira ciidamada uu marba meel geenayo marba meel u rarayo ciidamadu waa inay diidaan wixii sharci daraa waa inay ka hor yimaadaan oo yidhahdaan ummaddayada xabad kuma ridayno imise sanaynu xabad isku ridaynaa is caysanaynaa oo isbarakicinaynaa oo isdilaynaa oo isdhibaataynaynaa oo isdhaawacaynaa imise sano waxa waa inay meelay ku istaagaan leeyihiin haddii marka nin warlord cusub soo baxo dagaal ooga cusub oo rabo halkii inuu dadnimo maaha taasu dadku waa inay gartaan maslaxaddu maxay tahay dantu maxay tahay wanaaggu muxuu yahay khayrku muxuu yahay waa inaynu garanno walaalayaal taas haddaynu taa garan weyno waxba ma nihin dad mayna xayawaan oo kaleynuna doonina mayna inaynu maaragtay dad khariban u ekaano ama adduunku ay u arkaan war dadkani dad ismaamuli kara maaha ama bini aadanba ma ahaba seeba intaa waxaa ugu jiraan arrintaas arrin hagaagsan ma aha xasan uu wado waana in la diido waa in laga hor yimaado dadka soomaaliyeed aniga raja ii muuqata bisayl baa ii muuqda inay dadku gaareen oo runtii ay maanta diyaar u yihiin inay helaan dowlad
iyo hoggaan iyo cadaalad iyo sinaan iyo hore in loo socdo iyo waxqabad iyo dhaqaale inay helaan inay u muuqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana hormuud ka ah waa inay cadaadiskooda bixiyaan badiyaan waa inay isu soo baxa badiyaan waa inay hadallada iyo maaragtay TV-ga iyo social media ay ka hadlayaan ay maaragtay dalabkooda ku muujiyaan waa inay dhalinyarada Soomaaliyeed geeska gees wadanka ay noqdaan xoog ma garanaysaa isbedelka maanta dhaqaajiya oo ka qayb qaata waa Cabdi Maxamuud Qalla iyo barnaamijkii idinka imaan jiray macadka nabadda iyo bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantiin walaalayaal